ruushka magaalada Moscow webiga Kotlovka uma eka webi buuxa. waxaad ku socon kartaa leebanka dhinaca kale adigoon qagahaga qoyan. meesha ugu mool dheer biyuhu waa jilba dheer. waxaan ku tusi doonaa inta ay leeg tahay biyaha halkan markii hore. tani waa hoos fidsan heerka biyaha hadda jira. tanina waa gunta simay webi qadiimi ah. banka dheer ee webi qadiimi ah. markii hore biyuhu waxay ahaayeen heerkan. waxaan ku tusi doonaa xagal kale. tani waa xeeb qadiimi ah. tani waa gun qadiimi ah. heerka biyuhu wuxuu ahaa qiyaastii halkan. laakiin maanta waxaa jira biyo aad u yar. markii hore biyuhu waxay ku gulqulayeen qiyaastii heerkan. laakiin kadib biyihii waa la waayay. waxaad odhan kartaa ruushku waa qabow iyo baraf jiilaalka. xilliga guga barafku dhalaalaa oo biyo badan ayaa soo baxa. malaha inta lagu jiro daadka guga togkan weyn ee gebi ahaanba biyo ka buuxaan. waxaan ku tusi doonaa waxa halkan ka dhaca guga. tani waa banka qadiimiga ah ee webiga. kani waa gun hoose oo webi qadiimi ah. heerka biyaha ayaa ahaan jiray halkan. barafka ayaa dhalaalay laakiin biyuhu waxay ku socdaan kaliya kanaalka jacriga ah. waxaa jiray baraf badan jiilaalkan. laakiin ma jirin biyo ku filan. gunta qadiimiga ah gabi ahaanba waa engegan tahay. xitaa kadib markii baraf badan uu dhalaalay webigu wuu awoodi waayay inuu ka soo kaco sariirtiisa casriga ah. waxaad odhan kartaa sannado badan ayaa webiga yari si tartiib ah u dhaqay toggii moolka iyo weynaa. aynu isbarbar dhigno dhulka. halkan waa banka webi qadiimi ah. waa kan gunta siman ee webi qadiimi ah. aynu eegno ji'ada casriga. halkan waa banka casriga ee webiga. halkan waa hoosta fidsan oo casri ah. hoosta fidsan ee qadiimiga ah sidii hore ayay ahayd. sidan ayaa maanta dhacday. gargaarka ayaa gebi ahaanba isku mid ah. farqiga kaliya ayaa ah cabbirka. halkee bay ku baaba'een tiro intaas leego biyo ah. markii hore waxaa jiray biyo badan. laakiin waxa ka soo hadhay webiga weyn waxa ay ahaayeen tog yar.